dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Shirkan jaraa'id maanta waxaan ku talagalnay meesha ay wax noo marayaan sida aad la socotaan magaalada Baraawe deegaan doorashada labaad ee Koonfur Galbeed waxaa si habsami leh uga bilowday una socday doorashadii qaybtii labaad ee 26 kursi ee taalla magaalada Baraawe 13 kursi hore si fiican ugu dhamaadeen 13 kursi kale ayaan iclaaminay 13 kursi ayaan waxaan rajaynaynaa waxaan maanta bixinay dhammaan dadkii soo sharaxay oo gaaraya 26 qofood shahaadadii ayaan guddoonsiinay si fiican oo habsami leh ayay noogu socotaa si fiican ay noogu dhamaatay shaqada berritooda oo Arbacaa taariikhdan ay ku beegan tahay 16 waxaan rajaynaynaa inaan qabanno qayb ka mid ah doorashada 13 kursi ka mid ah qaybta labaadna waxaan qabanaynaa maalinta Khamiista haddii la yiraahdo sidaas waxay noqonaysaa 26kii marka maalinta Khamiista la gaaro haddii la yiraahdo 26kii kursi yaalay Koonfur Galbeed deegaan doorashadiisii labaad inay soo dhamaato waxaan noo xigi doonaa haddii la yiraahdo oo Ilaahay noo ogolaado inaan ku noqono magaalada Baydhabo oo caasimadda ku meel gaarka Koonfur Galbeed oo sida aad la socotaan ay baaqi ku yihiin 19 kursi 19kaas kursi ayaa waxaan rajaynaynaa inta aan la gaarin 25ka inaan inta Ilaahay na karansiiyo oo aan qaban karno dhammaantood hadday noqoto iyo qaar ka mid hadday noqoto inaan qabanno oo aan soo dhammayno 25 bishood ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan ummadda Koonfur Galbeed waxaan ugu bishaaraynayaa tiimkii Koonfur Galbeed loo idmaday doorashada inay hawshooda sidii loogu talagalay ay u gudanayaan sida aad la socotaan waa guddiga kaliya oo deegaan doorashadii labaad ka bilaabay shaqo haddana ku socda gabagabo insha Allah waxaan rajaynaynaa deegaan doorashada koowaad ee magaalada Baydhabo ah inta harsanna inaan waqtigii loogu talagalay oo ay ku ballameen madaxda Soomaaliyeed inaan ku soo gabagabeyno sidaas ayaan kugu bishaaraynayaa waxaan idin rajaynayaa guul. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.